جابر بن عبد الله الأسدي وأقوياء مسلمها وأقون لها علمي كمسترية علمي فلقة أقونت معدنت فلسفة يا عافماتك waxay dhalashadiisu ku beegan tahay 100 hijriga oo ku aadan 722 miilaadiga waxa uu ka dhashay qoys asal ahaan Yemeniyiin ahaa oo inta Yemen ka guuray dhanka Ciraaq u guuray aabihiina waxa uu ka mid ahaa dadkii u oleyn jiray khilaafadii Cabbaasiyada kadibna Umayyiyiintii ayaa qabtay oo dilay qoyskoodiina dib ayuu ugu soo cararay Ciraaq oo uu soo guuray dhanka dhulka Yemen ayuu ku soo koray Jaabir oo mar dambe ayuu ku laabtay dhanka Ciraaq Jaabir Ciraaq ayuu ku bartay aqoonta kimistriga wuxuuna inta badan sameyn jiray tijaabooyin dhanka kimistriga ah waxa uu ahaa Jaabir qofkii ugu horeeyay oo si rasmi ah u tijaabiyay kimistriga inta uu shaybaar u sameystay Jaabir bin Hayyan waxa uu kaga duwanaa culimadii hore ee Giriiga inuu ahaa mid mar waliba tilmaami jiray wadada loo maro tijaabada cilmiga isagoo aad u sharaxi jiray tijaabooyinkii uu sameeyay waxyaabihii uu aad ugu takhasusay waxaa ka mid ahayd وما بحنت هي سفينة وحيالها كيميكا جابر بن حيان waxaa kale oo curiyay aalado ama qalab loo adeegsan karo cilmiga kimistriga wuxuu sidaas oo kale dib u habeyn ku sameeyay qalabkii ama aaladihii hore loo adeegsan jiray waxyaalihii uu soo kordhiyay waxaa ka mid ah qaabka birta loo diyaariyo sida loo sameeyo aashitada sidaas oo kale wuxuu alifay sida loo diyaariyo rinjiga hagaajinta dhalooyinka sida birta looga ilaalin karo inay daxlaysato waxa kale oo aad ugu takhasusay farsamada dahabka iyo waxyaalaha la xiriira gaar ahaan sida dahabka looga ilaaliyo qishka iyo khiyaanada waxyaalihii uu Jaabir bin Hayyan daaha ka qaaday waxaa ka mid ahaa adeegsiga dhagaxaanta loo yaqaan Simba waxa kale oo Jaabir bin Hayyan sheegay in falkalka kiimikada uu ku dhisan yahay qadar la isla garanayo ama la isla yaqaan Jaabir bin Hayyan waa ninkii ugu horeeyay ee tijaabiyay in macdanta laga dhigi karo dahab waana uu ku guuleystay tijaabadaas isagoo adeegsanayay maadooyin cayiman waxaana arintaas aad ugu helay dumarkii magaalada deganaa kuna faaftay magaaladii arintii waxayna aakhirkii gaartay culimadii magaalada joogay culimadii ayaa Jaabir ku xukumay inuu yahay sixroole waxayna ku gaareen inay nafta dhaafiyaan laakiin Jaabir waxa arintii u soo sheegay mid ka mid ah ardaydiisii wuxuuna gurigiisii kala baxay kutubo dhowr ah intaas kadib waxa aqalkiisii yimid ragii doonayay inay Jaabir dilaan laakiin waxay daqo siiyeen kutubtii uu qoray iyo qalabkii uu ku shaqeynayay Jaabir bin Hayyan waxa uu qoray ku dhawaad 3,000 oo kitaab mana ahayn dhamaantood kuwa uu kaga hadlayay cilmiga kimistriga oo kaliya waxa uu wax ka qoray cilmiga xisaabaadka falsafada iyo cilmiga daawada kutubtii uu qoray waxa ugu caansanaa kitaabka lagu magacaabo Al-Kabir Ash-Shamil oo ku soo koobay culumtii uu yaqaanay waxa kale oo kutubtiisu ugu caansan kitaabka Ar-Rahma iyo Hadkil Astar iyo kutub kale oo aan halkaan ku soo koobi karin Jaabir bin Hayyan waxa uu ku dhintay magaalada Kuufa ee dalka Ciraaq isagoo 90 jir kor u dhaafay sanadii 197 hijriga qarnigii 8 ilaa qarnigii 14 waxay nasiib u yeesheen dadkii noolaa in lagu magac daray xilligii dahabiga ahaa waxay leeyahay muslimiinta hoggaanka u hayeen cilmiga sayniska iyo mid maadigaba iyadoo xilligaasi wadamadii Yurub ay ahaayeen kuwa cilmigaasi ugu dambeyn jiray muslimiinta wuxuuna Jaabir ka mid ahaa culimadii nooleed qarniyadaas marka sidaas darteed hadii aad fiiriso wadadii ay qaadeen culimadii islaamka ee hore ee dunida soo maray waxaad ogaanaysaa in hodantinimada fikradeed ee saxda ah aysan ahayn aqoonta balse ay tahay malawaalka shay sidaas darteed hadii aad isku daydo inaad wax soo malawaasho sida ay culimadii hore sameyn jireen waxaan noqonaynaa amad wax soo saar leh oo ka dhaweysay riyooyinkeeda daawadayaal kulanti dambe oo xiiso leh